aad baa umahadsantaha walaal waa dhowahay xasan cabdiraxmaan shabakada hayaan waa idinka mahad celinaya waraysiga ila yeelanaysaan. haye sadiiqow bal waxaad naga warantaa arooskaaga wuxuu arooska ugu saameynta badnaa bal ka waran gabadha adigu is aroosteen muddo intee laga wada socoteen? walaal waxaan wada soconay muddo ku dhow 5 sano. haye 5 sano a wada socoteen dabcan ma waxaa jira caqabado? wax caqabada ma jirin walaal, mar baan kala fogaanay oo laba wadan kala tagnay safaro iyo hawlo ku saabsan danteena aan kala baxnay sida laaliya dad waqti badan kala maqnaa ma ahayn. markaa imina alxamdulilah waa dadku habeenkaas waxay dareemayeen aroosku ahaa mid labadiina hilow fara badan oo idinka muuqday. ha walaalo waxa weye waxyaalaha waxaa jira adduunka qof walba waxbaa ku dhaliya inuu diroodo ama inuu maaragtay murugoodo labadaba. qofna wuxuu la murugoodaa oohintiisa waxay noqotaa oohin ku salaysan murugo, qofna oohintiisa waxay noqotaa farxad mid ku salaysan. aniga shaydu waxay ahayd farxad ku salaysan, taasaana wanaagsan siiniya. marka sababta aan maaragtay u buurooday baa wax jiray anigoo jawi caadi isku qoslaya in dadka ehelkayga ah labadeeda ehel, gabadha ehelkeeda iyo gabadha iyo aniga ehelkayga labaduba si fiican oo hagar la-aan ay ka qayb qaateen. raggaas xabsiga ahaa iyo dumarkaas xabsiga ah xalfadeeda soo qayb qaadiyeen ayaga aad iyo aad ba maaragtay usoo xasuustay inay macnaha qiimaha ay leedahay inaad dad haysatid. bal habeenkaas dareenka ka waran maxay ka dhigneed? walaalo habeenka habeen farxadeed bay ahayd. qofku u adeegsadaa si khaldan videoga halkiiga waxa la yiraahdo sawirradana aan muujinaya inaan macnaha qof ooyay ama dareen farxadeed aad iyo aad u aragti liita ama waa dad aan weli nolosha wax badan oo aan fahamsanayn lagana doonaa ma garataa. waaya marka muddo waxaa i sheegtay inaad kala maqneedeen dabcan adiga iyaduba halkee baad ku kala sugneedeen markaas? ayaduna Soomaaliya ku sugnayd, anna waxaan ku sugnaa wadan Soomaaliya ka baxsan. waaya marka hore halkee baad isku barateen? waxaan isku baranay magaalada hadda aan kursanay Galkaaga. waaya marka ma caadi isku barateen mise ama goobo ganacsi ama goobo waxbarasho waqtigaasi? waxaan isku baranay goob waxbarasho. waaya marka xiriirkiinu waqtiga wixii ka dambeeyey telefoonada iyo aaladahan casriga la iskala xiriiro ayaa inta badan ka ambaqaadi jirtay. ha walaal aad iyo aad gartay. marka muddo kadib waa midowdeen oo sidee bay arrinka ku suura gashay? walaal ilaahay waa mahad kale. qofka waxa weeye bini-aadanka ahi wax walba uu dadaalo, dadaalka ilaahay baa ka muhiimsan. ilaahay baa mahad kale. mar walba hadda waa ku hamin jiray inuu ilaahay niyadooda ii rumayn doono. qof islaam oo ilaahay ka baqayo waxa weeye ilaahay ku xiran wuxuu ku haminayo ma waayo ma garan. maxaa la yidhahdaa gabadha aada iscalmateen? waxaa la yidhahdaa Ilhaan Maxamed Axmed, Ilhaan Fays baa la yidhahdaa. waaya adigii Ilhaan marka ay midowdeen oo haddana muddo dheer ay kasoo gudubtay xiriirkiinii dabcan markaas ma arrin xagga caa'ilada waqtigaasi ku kala maqneedeenoo mise waxay duruufaha qurbaha aad ku kala jirteen? walaala duruufahaas bay ahayd. duruufo waxbarasho baan ku kala maqnayn, wax maaragtay ehelka xaggiisa caqabad ka taagneed ma lahan. marka cid maaragtay dhib noo geysatana ma jirto intaa wada socnay ehelkeena. waaya maxaad u sheegaysaa marka dadka ka dhegaysanaya radio hayaan iyo guud ahaan caalamka codkaagana maqlaya arrintan laga yaabo ku baraarugay waraysyadii warbaahinta qaar aad siisay iyo dareenka ay daawadeen siyaabihii kala duwanaa ee loo fasirtay? walaal aad baa umahadsan tahay. horta dadka hal mid baan waxa weeye hadalkaygana kusoo kufinayaa. dadkan waxaan oran lahaa wixii diinta islaamka ugashahay qofka farxadiisa uu kaga qayb qaadan karaa. wax dhib u keenaya diinta islaamka unbaa daran. marka wax walba diinta islaamka ugashay qofka farxadiisa uu kaga qayb qaadanaya. waxaan dhihi lahaa lamaanayaasha cusub oo raba inay nolosha ku midoobaana inay waxaan sameynay wax ka wanaagsan samayn doonaan. inkastoo ay adag tahay qofku inuu hiis ka keeno, ay ku xiran tahay dareenka marka uu ku jiro. dadka la yaabana waxaan dhihi lahaa si degan oo niyad samiyan oo dhihi lahaa inay noqdaan dad qalbigooda jilicsan yahay hadday yihiin dad qalbigooda adkaaday oo naxariista ka guurtay. sadiiq haddii aan kula kaftamo dadka qaar kommentiyadooda ayaan aqrinayay waxay yidhaahdeen reer muduga loogama baran jirjilaac oo kale. dadka qaara sida oranayay
هذا ما تساوي ولا waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa waxa weeye beenkuma mahado waan ku horreeyay godad maaragtay dagaal iyo dhibaato iyo adadkaan iyo garanaysaa lagu yaqaan maaragtay wax hadal adag ma garantaa si fiican marka waxa leedahay romantic way jili karaan laakiin waxaan dhihi lahaa dhibaatooyinka mudug baa ka sii jeedinaya iyo waxa xamaasadaha jira oo waxa loo arkaa qofka hadduu ooyan yahay qof jilicsan ama qof aan qof walba dareen iyo qalbi u leeyahay xaaladda uu markaa ku sugan yahay inuu dareen ku salaysan yahay waa tahay marka waxaa leedahay reer muduga casriga hadda jira waa dad maaragtay dee caalamka la jaan qaaday oo runtii caalamka ka aragtida caalamka la jaan qaaday weeye aniguna reer mudugnimadeedii iyo adkaanteedii waa ugu jirtaa laakiin qof dareen loo damiir lamaa aad u mahadsan tahay saaxiib Sadiq waana ku hambalyeynaya adiga Damaashi waxa la arooskiina horumar iyo ha gaaro guul ma fahamtay insha Allah iyo Allah anuurkiina hayo naftaada xidhaytaaye nabaraday damqanayo halkay dadabtu iga hayso inacabku iga wiiqay inafooyelay inacabku iga wiiqay inafooyelay igu noqnoqonaya bay galay nabdiga iyo nudaha beerkayga